Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum. Kulanti habboon daawadayaal. Waxaad ku soo dhowaataan qaybtii 8aad ee taxanaheennii Irbaddii Eelka Reebtay. Sheekadani waxaa qoray Qora Cabdilaahi Sacal Axmed. Qaybtanina waxa ay ku bilaamaysaa sidan. Wax badan baan sii falanqeeyey intii ay iga tagtay ilaa waagu ka dilaacayay. Hurdaha sheegin oo iyada baryahaaba ismaanu aqoon. sawirradii maskaxdayda soo marayay ayaan marba mid faalleeyey. madaxii aan habo u ruxayay iska dhaqaajin uunbuu ahaa ee mawduucu si fiican iiguma dhicin. waxa keliya ee igu soo mirkacayay wuxuu ahaa jacaylkii Axmed. waxaan shaki gelinayay miirqabkayga. sidee ayaad u jeclaatay qof caafimaad qaba oo fay ah? kollay caadi ma tihid ayaan hoos isu idhi. haa, oo caadi ma jiro. jacaylkaa laftiisuna iga waalicas. waagii baa baryey. codadka kala gaarka ah ee subaxuna dhagahayga ayay soo gaadhayeen. haba ayaa soo gashay qolkii. salaan kadibna weelkii madaxayga yaallay ayay iga qaaday. daqiiqado hadday iga maqnayd quraac diiran ayay ii soo hordhigtay. diyaargarow, saacad kadib baynu baxaynaa ayay igu tidhi. waxaan diyaariyeyba may jirin runtii. 10 daqiiqo igumay qaadan inaan shandad yar ku ururiyo maryo aan haystay. wax kale oo aan qaato ma garanayn oo meeshan dhex yaallay. saacado kadib habo ayaan israacnay. xaruntii ay ii sheegaysay ayaan soo abbaaray. muddo waxaan soo cagatiinaba waan soo gaadhnay. ganjeel weyn oo qorrax dhaca u jeeda ayaan ka soo galay. gaadhkii oo albaabka taagan ayay weydiisay in xafiiska cidi joogto. ilbidhiqsiyo ayuu naga maqnaa. markuu soo noqdayna soo socda ayuu yidhi. waan isdabagalnay ilaa aan xafiiskii ka tagnay. nin dubcad ayaa fadhiyey iyo nin kale oo Soomaali ah. dabcan Soomaaligu waa turjumaan shaqadiisa aad u yaqaana, afmiishaarna ah. hadalbadnidiisu shaki bay ku gelinaysaa inuu been sheegayo. hadalka ninka cadna wax ku darayo. habo ayaa hadalkii bilowday uuna sharaxday xaaladdayda iyo waxa aan ku suganahay. warbixin kooban dabadeed ninkii caddaanka ahaa ayaa hadlay. turjumaankiina farriintan noogu soo dhiibay. wuxuu yidhi, xaruntan waxay u heelan tahay inay dhibanayaasha xanuunka aydiska caawimaad dhan walba ah u fidiso. ma jirto wax mushqaayad ah oo aannu ku qaadanno adeegayaga. keliyaata sidaannu bulshadan nolol ka duwan tan cuslaynaysa ugu samayn lahayn ayaannu u heelan nahay. idinna waan idinku soo dhowaynaynaa xaruntan wakhti walba. hadallo kale ayay habo isa sii weydaarsadeen. is-afgarashose waxay noqotay in lay geeyo qolkayga cusub ee aan dhismayaashan badan ku yeelan doono. sii fadhii ayayna dhaheen. muddo aan badnaynna way naga maqnaayeen. yimaade waardiyihii meesha ayaa laygu soo daray si uu qolkaygii ii geeyana wuu ii horkacay. habo iyada halkii ayaan isku soo sagootinnay. waanig iyo dardaaran aan yaraynna subaxa way igaga tagtay. qaabka meeshan loo dhisay iyo suuqyadan waaweyn ee iska soo horjeeda ayaan la ashgaraasanaa. mid qudha kumuu ool xaafaddii isku raranka ahayd ee aan muddada dheer ku noolaa. waan soo soconnay kana soo fogaannay. albaabkan ka soo galay. in yar baan ku hakaday. dabaqii iga sarreeyeyna kor u eegay. mise 2 nin ayaa xaggaa sare naga soo qaawisaya. indhihii ayaan degdeg ugala booday. beer aanay kolkii hore u jeedinna ku mashquuliyey. si aan haddana wajahaddayda eegay, waardiyihii oo inuu i raagsaday ka muuqato ayaa halkaa iga soo eegaya. soo dheeray ayaan indhihiisa ka akhristay. orodkaanan hoosta ka soo xaday ilaa aan soo gaadhay. dabaqaan hoos maraynay. luuq dhexdiisa ah ayaan ka dusnay. bidixna u laabannay oo qayb kale ku soo baxnay. waa tooskaa ee inakeen ayuu i yidhi. kala fogaa meeshan socod baaba loogu dhiman ayaan hoosta ka leeyahay. ugu dambayn waxaan soo gaadhnay albaabkii qaybta cusub laga galaayay. riixistii albaabka waxaa noo xigtay jaranjartii u horraysay inaan fuulay. dhismaha qaybtiisa labaad ayaan soo gaadhnay. jaranjartii markaan ka dhammaannay 2 qolna dhaafnay ayaan kii 3aad hor istaagnay.
albaabka ayuu si dhowrsi ka muuqato u garaacay. Ilbiriqsiye kadibna gabadh baana hor taagnayd. Indho qariib naguma eegin oo waxaan dareemay in sheekadayda hore loo sii dhameeyey, qolkan iyo inantanna lay qorsheeyey. Salaantii ran kadib qolkii ayaan hore u galnay. Indhaha ayaan la raacraacay qolkii. Gidaaradiina indhaha mariyey, wax saa u badani ma oolin aan ka ahayn sariiraha labada ah ee iska soo horjeeda, miiskan weyn ee buugtu saaran tahay, albaabkana dhinac yaalla iyo daahyada lagu gudbay, fallaadhaha cadceedda ee daaqadda ka soo galaya. Soo dhowow, qariibnimo kuma dareemi doontid halkan, ayay igu tidhi. Waan u dhoolla caddeeyey anoo ugu mahad celinaya qalbi wanaagga ay ii muujisay. Isbarasho kooban baana dhex martay. Magacayga wanaagsan ee Amaal ayaan u sheegay, iyana Bushaaro ayay ii sheegtay. Tilmaamo kooban bay i siisay oo ku saabsan qolka, suuliga iyo waxyaalaha kale ee ay muhiimka u arkaysay. Sariir aan dareemay inay ii diyaarsan tahay ayaan dul fadhiistay. Muddo ayaanan sidii u dul fadhiyey. Mataag darri bay iga ahayd mise deegaanka cusub baan saluugayey mid ay ahayd ma xusuusto iminka. Bushaaro way iga baxday si ay igu doonto waxaan cuno. Kahorse intaanay tegin ayay igu tidhi, qolku waa qolkaagii, fadlan qariibnimo ha dareemin. Uma joogno halkan inaan ku cidloono. Firfircooni baan iska baadhay, alaabtaydina meel ku habaystay. Jir si walba u daallanaa ayaan biyo soo dul orodsiiyey. Intaan maydhashada ku maqnaaba, Bushaaro way soo noqotay. Cunto diiranna miiska ayay ii sii saartay. Daqiiqado kadib cuntadii baan faraha kula jiray. Anoon ka dherginna waan ka faraxashay. Dhammayso, hadday igu dirqisayna waan ka diiday. Dhaqanka ayaan dhowrayey ee runtii cunto laga faraxasho may ahayn. Bushaaro kumay dhiiran inay iga waraysato xaaladayda caafimaad. Su'aalaha ku taaganse wejigeeda ayaa laga akhrisan karayey. Qof furfurnaan u dhalatay, waqtiguuse ka hiiliyey ayay ahayd. Waxay ii diiday inaan qaloodo oo kelinimo labaad dareemo. Marba sheeko ayay igu habtay, iyadoo og inaan aamus laasimay oo iyo haye mooye aanan wax kale ku darsanayn. Ugu dambayn waxay ii sheegtay in meeshu leedahay qayb waxbarasho oo subaxa la galo, fasallo kala duwan inay jiraan ayay ii raacisay. Asxaab kaloo badan ayaad baran doontaa berri, ayay i tidhi. Macallimiin ajaanib iyo Soomaali isugu jirta inay meesha dhigto waxbay iiga taabatay. Hore u seexo si aynu u kallanno, haddii aad wax u baahatidna iga xishoon, ayay igu khatimtay. Waan u mahad celiyey, habeen wanaagsanna u rajeeyey. Intaasi kadib maxaa dhacay? La soco daawade qaybta inoo xigta, qaybteena maanta. Sheekadana waxaa qoray Qorax Cabdilaahi.